doonaysaa inaad noqotid ethical hacker professional ah. Hadaba waa ku muhiim inaad ogaato qaybaha networking-ka ee tayna focus ka saarto. Barashada networking-ku waxay si aad kaaga caawinaysaa inaad wax badan ka fahamto service security-ga iyo sida loo ilaaliyo networking-ka. waxaad soo kala baranaysaa meelaha ka samaysmaan lagana heli karo guddileedada networking-ka. kusoo dhawaad dhalinyaro Muqalkenan maanta waan ku soo qaadan doonaa qaybaha networking-ka ee muhiimka u ah service security. aynu ugu horeysiino IP Address-ka iyo Subnetting-ka. IP Address-ku si marar badan soo xusnay waa nambarka lagu aqoonsado qalab kasta oo ku jira network-ka. waa address-ka uu computer-ku ka degan yahay network-ka. waxaana muhiim ah inaad baratid oo wax badan ka fahantid qaabka uu shaqeeya labada nooc ee IP Address-ka kuwaasoo kala ah IP version 4 iyo IP version 6. Subnetting-kuna waa in networks-ka waaweyn loo qaybiyo qaybo yaryar oo si fudud loo maamuli karo. waxaana la adeegsanaya IP addresses si loo sameeyo subnetting. haddaba maxay muhiim u yihiin labadaani? markaynu iskaan garanayno networks-ka waxayna IP addresses-ka u adeegsanaa si aan u helno qalabka aan doonayno. Subnetting-kuna wuxuu noo sahlayaa inaan focus ka saarno kaliya taa qaybta uu ka tirsan yahay IP address-ka aynu rabno. inagoo iskaga tegayna qaybaha kale ee network-ka ee aynan u baahnayn. Subnetting-ka la'aantii waxaynu baari lahayn dhammaan network-kaas. IP address la'aantiina maynu helnayn device-ka aynu rabno. qaybta labaad ee muhiimka ah waa DNS ama Domain Name System. waa systemka inoo turjuma IP address-ka jamaaciga website-ka aynu naqaano. tusaale ahaan waxaynu naqaanaa website-ka Google balse markaynu site browser-ka ku qorno browser-ku ma aqaan magacaani kaliya waxaa fahmaya IP address. marka si aan isku fahmi karno browser-ka iyo inagu waxaynu adeegsanaynaa Domain Name System oo ah system ay ku kaydsan yihiin dhammaanba IP address-ka websites-ka aynu naqaano iyo magacyadooda. waxaana muhiim ah inaad DNS ka barato records-ka iyo sida u shaqeeyaan. DNS zones-ka iyo sida looga faa'iideysan karo bilaalada DNS-ka loona samayn karo DNS poisoning. records-ku waa sida uu DNS ku shaqeeya ee uu match gareeyo IP address-ka iyo magaca website-ka. waxaanu leeyahay qaybo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin record, CNAME record iyo MX record. waxaana in badan dhacda in weerarada hacking-ku ay ku bilaabmaan oo networks-ka laga soo galo DNS daciif ah oo aan laga taxadirin configurations-ka lagu sameynayo. qaybta saddexaad ee networking-ka muhiimka u ah waa MAC address-ka iyo Address Resolution Protocol ama ARP. MAC address-ku waa aqoonsi khaas u ah computer-kaaga kaasi oo aan isbedbedelin laguna adeegsado in lagu aqoonsado device-ka marka la joogo layer 2 ama layerka data link ee OSI Model-ka. ARP ama Address Resolution Protocol waa protocol oo adeegsado networks-ka localka ah yacni networks-ka si xafiisyadoo kale ama guri. haddaba haddii computer ku jira local network uu rabo inuu fariin u diro computer kale oo isla network-kaasi ku jira waa inuu helaa MAC address computer-kaas. si uu helo MAC address-kaasna waa adeegsanaya protocol-kan ARP. haddaba waxyaabaha ku baranayso qaybtan waxaa ka mid ah sida hackers ku adeegsadaan ARP ee iskaga dhigi karaan qalab kale oo legitimate ah. tusaale ahaan hackerku waxa uu soo dhex geliya network si uu targetgalayo device ka mid ah network-kaas. waxaanu isku eegaysiinaya mid sax ah oo hore ugu jira network-kaas. waxaa sidoo kale la samayn karaa man in the middle attack oo aynu muuqaal hore soo qaadanay si loo sameeyo. qaybta afraad ee networking-ka muhiimka u ahi waa barashada labada model ee OSI iyo TCP IP model. labadan model waxaa si fiican u baranaysaa sida xogtu u kala dhex gudubto qalabada kala duwan ee network-ka ku jira. macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan labadaani waxaad ka helaysaa muuqaalkan aynu ku sharaxaynay waxyaabo badan oo ku saabsan asaasiyaadka networking-ka. qaybta shanaad ee tan badan ka daraasiiso waa ports-ka iyo protocols-ka. waxaan filaynaa in labadan qof kasta fahmi karo muhiimadda ay network-ku leeyihiin maadaama markasta maqlayso protocol-kaas ee la adeegsanaya ama port-kaas ee la adeegsanaya. protocols-ku waa xeerarka kala haga isweydaarsiga xogaha network-ka. port-iskuna waa meesha ka wada xiriiraya computer-kaaga iyo services-ka aad adeegsanayso. tusaale ahaan port 80 waxaa caan ku ah protocol-ka HTTP oo ah kaisuukan xidha inaga iyo websites-ka. haddaba barashada labadaani waxay ku fududaynaysaa markaad scan ku samaynayso network. waxaad arki kartaa service-yada active-ka ah iyo ports-ka ay ka shaqaynayaan. waxaadna halkaasi ka ogaan kartaa guddileelada aad ka faa'iideysan karto. ugu dambeyn inkasta ay badan yihiin qaybaha networking-ka muhiimka u ah shantan ayaa laga maarmaan ah inaad taqaano. waxaa xusid mudan inaanu diyaarinay cashir ku saabsan networking-ka kaasood ku baranayso waxyaabo badan oo basics-ka networking-ka ah. halkaas sare ayaad ka heli kartaa. waxaa sidoo kale qaybta description-ka muuqaalkan idinku diyaarinay meelaha ugu fiican eed si free uga baran karto networking-ka weliba si advance ah adigoo ku baranaya qaybahan aan soo xusnay iyo kuwa kaleba. la wadaag muuqaalkan asxaabtaada kuna soo biir Somali. Mahadsanid.